السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada koorsadeenii taxanaha noo ahayd barashada luqadda Python ee af Soomaaliga lagu baranayay. Waxaan maanta ka sheekeyn doonaa hadduu aliraha compilers iyo interpreters. Compilers iyo interpreters waxa ay yihiin inta aan gaarin markii aan qorno program computerka aan ku qorno badanaa programkaas waxaan ku qornaa luqad high level language ah. Hore usoo sheegnay Python waa high level language aan dhahnay. Marka high level language ku qorno program qoraalkaas aan qorno ama code-ka aan qorno waxaa la dhahaa source code. High level language programka aan ku qorno waxaa lagu magacaabaa source code. Source code-ka waxaa loogu talagalay oo fahmi karo bini'aadanka. Qofka dabcan yaqaana luqadaas ayaa fahmi karo. Aniga haddaan qoro adiga fahmi karo, adiga haddaan qortid aniga iyo kuwa kale ayaa fahmi karno. Laakiin nasiib darro high level language code-ka lagu qoro source code-ka aan ku sheegnay computerku ma fahmi karo. Computerku wuxuu fahmaa program lagu qoro machine code ama machine language waxaan ku soo sheegnay. Machine language waxaan dhahnay binary language waa lahaa just zeros iyo ones ay ka kooban tahay. Now zeros iyo ones ay ka kooban tahay binary code binary language machine code machine language taas ayuu computerku fahmaa. High level language inaga wax ku qornaa oo fahmi karnaa noo fudud. Computerkuna wuxuu fahmaa machine language luqad la marka laba luqadan kala isticmaalay. Si computerku marka uu u fahmo code-kii aan qornay waxaan u baahanahay in laga turjumo luqadii inaga aan ku qornay ee loo turjumo luqadii isagu yaqaan. Waxay la mid tahay tusaale ahaan anigoo af Soomaali bis aqaano hadduu yimaado qof yaqaano af Spanish gacmaha markuu taagtaago ma isfahmayno. Marka waxaan u baahanayaa qof labada luqad isku yaqaano oo anigana markaan dhaho see tahadii ugu turjumo luqadiisii isagina markuu hadhow waa fiicanahay igu soo turjumo af Soomaali. Marka waa sidaas oo kale turjubaana u baahanahay. Annaga waxaan wax ku qornaa high level language luqadda rabta ahaato ama Python ama Java ama JavaScript waxay rabta ahaato. Kabacdina computerkii si uu u fahmo machine language uu yaqaanaa computerkii. High level language waxay isticmaashaan dhahnay eray English la mid ah if else iyo while iyo go to iyo wax la midka. Halka uu isticmaalo machine language-na zeros iyo ones. Marka waxaan u baahanahay dhextaal ama turjubaan u baahanahay. Turjubaankaas ayaa si kooban waxaa la dhahaa compilers iyo interpreters. Compiler marka ama interpreter waa turjubaan haddaan si kale u dhigno. Laakiin wuxuu turjumaa code lagu qoro high level language ayuu wuxuu turjumaa into machine language. Code lagu qoray high level language oo inagu aan fahmi karno bini'aadamku ay fahmaan yaqaanaan oo wuxuu u turjumaa mid uu fahmi karo machine-ka ama computerka oo ah machine ama binary language. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa casharkeena maanta hadduu alira waa ku mahadsantihiin dhegeysigiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.